soo dhawaada saaxiibayaal waxaad ila daawataan waxa dhexmaray wiilkan iyo libaaxa waa wax aadan rumaysan karin haddaba intaynaan muuqaalka u gudagalin waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada mahadsanid muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa qiso cajiib ah qisadan waxaa ku dhacday wiil muslim ah oo ku nool dalka Nigeria waxa uuna qisadiisii ku bilaabay sida tan magacaygu waa Aslam waxaan jiraa 25 sano waxaan ku soo barbaaray oo isoo barbaariyay waalid muslimiin ah waalidiinteedu waxay ahaayeen dad fuqara ah familkaygana waxa uu ka koobnaa 5 caruur ah aabo iyo hooyo aniga ayaa caruurta lix u ahaa waalidkaygana waxa uu ahaa faqiir waxay ka shaqayn jireen beeraha hooyadeydana waxa ay aadi jirtay suuqa si ay u soo iibiso waxyaabaha beerta laga soo gooyo shaqadaasina waxa ay ku kaalmeyn jirtay aabahayga anagoo xaaladaasi ku jirno haddana waalidkeena waxa ay ku haminayeen inaan noqdo dhakhtar waxayna ii dhihi jireen Aslamow haniyad jabin waxaan rabnaa inaad noqoto dhakhtar si aad u noqoto qof wax tara dadkiisa iyo ehelkiisaba waalidiinteyda maalin walba way ii waanin jireen ilaa aan ka dhameeyo dugsiga sare oo markii aan galay dugsiga sare waxaan kaalinta koowaad ka galay fasalka koowaad kan labaad kan saddexaad ilaa iyo kan afraad ee dugsiga sare habeen oo dhan ma seexan jirin sidii aan u rumeyn lahaa riyada waalidkayga darteed guushana aan u soo hoyn lahaa waalidkayga aad ay u farxeen markii ay arkeen inaan kaalinta koowaad ku soo baxay aabahayga waxa uu aaday suuqa waxa uuna ii soo iibiyay dhar aad u qurux badan iyo boorso aad u dhalaalaysa asigoo aan nin faqiir ah waalidkaygana waxay ii sheegeen inaan isku diyaariyo safar dheer oo aan u aadayo safarkaasi waxbarasho jaamacadeed aniga waxaan jeclaa inaan waalidkayga kaalmeeyo laakiin waxay go'aansadeen inay magaalka ii diraan arrinkii waan ka yeelay waalidkaygana aad ay ugu farxeen arrinkaasi intaas kadib waxaan aaday magaaladii waxaan bilaabay jaamacadda waxaan iska soo diiwaangeliyay kulliyadda caafimaadka waxaan dhamaystay sanadkaygii koowaad iyo kan labaad anigoo ku guuleystay kaalimaha hore inaan sanadkaasi ka galo laakiin sanadkii saddexaad waxa ay asiibtay xanuun aad u daran oo waxbarashadii iga reebtay laakiin alxamdulillah waana caafimaaday oo waxbarashadayda ayaan sii watay anigoo guul ka soo hooyay waxbarashadayda waxaan dhamaystay jaamacaddii anigoo guul weyn ka gaaray alxamdulillah waxaan ka qayb galay xafladii qalinjabintayda anigoo aad u faraxsan waxaan shaqo ka helay wasaaradda caafimaadka ayadoo shaqadayda noqotay gobol aad ugu fog magaaladii aan wax ku baranayay aniga qarash badan maanan haysan oo gobolkaasi si dhaqso ah kumaan gaarin laakiin waxaan aaday dhanka iyo gobolkii wadadana waxaa ka buuxa xayawaan aad u xalis badan waxaan tagay isbitaalkii la ii soo tilmaamay aniga oo nabad qaba waxaan isbitaalka ugu tagay dhakhaatiir aad u tiro yar maalin maalmaha ka mid ah aniga oo fadhiyo xafiiskayga ayaan waxaan maqlay qaylo oo ka yeeraysa dhanka beerta ee isbitaalka waxaan arkay libaax qaylinaya shaqaalihii oo dhan cabsi darteed ay la dhunteen isbitaalka gudihiisa ayna isku qariyeen anigana waxaan soo aaday dhanka iyo meeshii uu libaaxa joogay aniga oo gacanta ku sita bisad ka samaysan bir waxaan u soo aaday si aan u caawiyo libaaxan qaylinaya laakiin libaaxii oohin ayuu la qaylinayay waxa aan dareemay in libaaxa ay murugo hayso waxaan ku dhahay istaag libaaxii ayaa dhacay isagoo iska dhigay mid aad u murugaysan waxa uuna bilaabay inuu gacantiisii ii soo taago asigoo oynaya waxaan gacantayda saaray gacantiisii waxaan dareemay libaaxan in culays badan uu haysto waxa uuna banaanka u soo bixiyay arabkiisa libaaxii ayaa istaagay asigoo u eg sidoo inuu wax ka dareemayo gadaashiisa oo kale markii libaaxii istaagay anigana waan ka daba istaagay markii aan istaagay kadib waxaan arkay libaax xaaskiisa ayadoo jiifta waxaan arkay ayadoo ilin badan ka da'ayso intaas kadib waxay ii ishaartay libaax aad u yar oo ayada dhashay oo xanuun la il daran markaas kadib ayaan soo qabtay anigoo daawooyin siiyay kadibna libaaxii labka ahaa ayaa wiilkiisii fiiriyay asigoo ku eegaya il naxariis leh oo jacayl ah intaas kadib libaaxii ayaa si naxariis leh ii soo eegay
asigoo indhihiisa ka da'ayaan ilin farxadeed. Weliba waxa uu ii soo eegayay eegmo aad u malaynayso inuu ii mahad celinayo oo kale, oo ii leeyahay waad mahadsan tahay digtoore, waxaad ii badbaadisay canugaygii. Arrinka yaabka leh ayaa waxay tahay libaaxii subax walba waxa uu ku soo kalahi jiray isbitaalka si uu aniga ii eego, kadibna waa uu iska baxi jiray. Subaxyo badan ayaa sidaasi dhacday ilaa aniga la ii bedelo isbitaal kale. Meeshaas ayayna ku dhammaatay qisadeennii. Dhagayste, adigu ma rumaysan doontid qisadan, laakiin qisadan waa qiso dhab ah oo dhacday, waxaana ka faa'iidaynaa in aadan qofka ku xukmin waxyaabaha ka muuqda ee aad ku xukmiso waxyaabaha gudihiisa ka guuxaya. Haddii aad qof ku xukmiso daahirkiisa, qofkaasi waa aad dulmisay. Intaas ayaan muuqaalkeena maanta kusoo gabagabayn doonaa. Haddii aad dhamaysatay muuqaalka, waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka. Inta muuqaalkan muuqaalkiisa xiga ku kulmi doonana, sidaas iyo nabadgelyo.